Asalaamu calaykum. Kusoo dhawaada casharkii labaad ee kooraskii taxanaha bilowga ahaa ee ku saabsanaa barashada cilmiga Forex. Muuqaalkii hordhac ahaa waxaynu kaga soo sheekaynay qofku hadduu u baahan yahay inuu ku shaqaysto suuqa maaliyadeed ee adduunka weyn ee loo yaqaano Forex trading, aqoon inuu barto. Haddaba aqoonta uu qofku baranayo waa 3 qaybood oo mid kastaaba ay roolkeeda ama ay qaadanayso qaybteeda laga maarmaan ay tahay. Qaybta koowaad waxaa loo yaqaanaa taxliilin farsamo, af Ingiriisi ahaana waxaa loo yaqaanaa technical analysis, oo aynu muuqaalkan inta badan kaga sheekaysan doono qaybteeda koowaad maanta. Qaybta ku xigta waxaa loo yaqaanaa taxliilin dhaqaale, af Ingiriisi ahaana waxaa loo yaqaanaa fundamental analysis, iyo qaybta ugu dambeysa fikirka traderka oo ah qaabka looga baahan yahay qofka traderka amaba suuqa doonaya inuu ka shaqaysto inuu u fikiro oo loo yaqaano trader mindset. 3 qayboodbana mid walba waynu guda geli doonaa. Waana sidan oo kale oo goobo weyn ayay ku guda jiraan oo mid walba qaybteeda ayay qaadanaysaa. Waxay soo qaadana tani tahay taxliilin farsamo, tanna ay tahay taxliilin dhaqaale, tanna ay tahay fikirka traderka. Hadafka keliya ee loo socdaana ay tahay inuu qofku uu noqdo trader lacag iyo dhaqaale suuqa ka tabcado. Marka mid walba qaybteeda ayaa ay qaadan doontaa. Haddii aynu ku soconno waxaynu maanta bilaabaynaa waxa loo yaqaano taxliilin farsamo oo af Ingiriisiga loo yaqaano technical analysis. Taxliilin farsamo waa sida loo akhriyo shumacyada iyo shaxanada suuqa adigoo adeegsanaya charts waxa loo yaqaano. Charts-kuna waa shumacyo amba shaxano amba xogtii suuqa oo qaab sawirra ahaan oo kala loo muujiyey inagoo halka dambe ku faahfaahin doona. Haddaba ujeedada waxaa loo akhrinaya waxay tahay waa inaad sii saadaalisid amaba aad sii odorostid qiimaha lacag cayiman inay kor ama hoos u dhacayso, oo lacagtaasi inay kor u socon doonto amaba ay hoos u socon doonto. Haddaba si kor u kacaas ama hoos u dhacaas aad faa'iido lacageed uga samaysid. Muuqaalka hore waxaan sheegnay lacag markay kor u kacdo lacag kalena ay hoos u dhacdo labadaa dhexdooda in faa'iido laga sameeyo. Taxliilin farsamo marka waxaa soo hoosgalaya 1 qofku inuu akhrin karaayo isla markaana fahmi karaayo xogtii suuqa ee kasoo muuqanaysay shaashada. Qaybta labaadna waxa weeyaan waaba ujeedadii loo socdayo waa in fursadii uu qofkii buy ama sell samayn karaayo amaba uu kor u qaadan karaayo ama hoos u qaadan karaayo. Macnaheedu in uu fursadii fulin karaayo oo iyadu qaayada u dambeysa ee loo socda ay tahay. Waana halka aynu waqtiga badan ku qaadan doono. Sida suuqa u dhaqaaqo. Suuqa 2 jeer kaliya ayaa u dhaqaaqa taasoo kala ah kor ama hoos. Forex waxaan aad arkaysaan lacag ah 2 option baa lacagta u bannaan oo ah inay lacagtaasi kor u kacdo ama inay hoos u kacdo. Suuqa 2 jeer kaliya ayaa u dhaqaaqa taasoo kala ah kor ama hoos. Macnaheedu tahay buy ama sell. Marka suuqa kor u socdo ee uu kor u dhaqaaqay waxa awood badan dadka suuqa soo iibsanaya. Af Ingiriisi ahaana waxaa loo yaqaanaa buyers. Waa sidii meel xadhig la kala jiidanayo kale oo 2 kooxood ay kala jiidanayaan. Kooxna buyers baa la yiraahdaa, kooxna sellers baa la yiraahdaa. Waxa awood badanayo kolba kooxdii awoodoodu ay xoogooda raacdo. Marka halka marka uu hoos socdana dadka suuqa iska iibinaya loo yaqaano sellers. Waa kan sawirkii. Macnaheedu waa maxay? Suuqu markuu intaasi saa u jeedo macnaheedu waxa awood leh sellerska waxaana la yiraahdaa suuqa hoos socda. Halka marka uu suuqu uu kor u jeedo ee uu sidaa yahay waxaa la yiraahdaa suuq kor u socda waxaana awood leh buyerska. Halka marka kale ay hoos socdaan ay awood leeyihiin sellerska. Dadka hoos u kaxaynaya waxaan iminka shaxdan aad arkaysid halkaa ku sawiran oo aynu isla eegi doono waa dad iyo lacagtoodii oo qof ayaa lacag fuliyey oo hanti iyo dhaqaale soo geliyey deedna shaxankaasiga hoos u dhaqaajiyey. Lacagta suuqa haddaba haddaynu isla eegno lacag kastoo suuqa Forex la trade gareeyo waxay isugu raacdaa 2 ama iskugu sidkan tahay 2. Marka lacagta hore waxaa loo yaqaanaa base currency. Halka lacagta dambena loo yaqaano code currency. Macnaheedu waa maxay? Markaad Forex aad soo gashid lacagaha inta badan waxaad aragtaa iyaga oo 2 xabo ay iska yihiin /na ay u dhaxayso. Iminka soo qaado kale euro USD baad maqlaysaa. Macnaheedu eurta waxaa loo soo gaabsaday lacagta eurada, US-tana waa US dollar. Macnaheedu waxa weeyaan lacagta euro tiro intee lag baa u dhiganta xabad US dollar ah.
marka forex bear wuxuu muujiyaa inta lacag hal dal macnaheedu European Union oo dhan lacagteedii aad ugu baahan tahay si aad ugu iibsato lacag dal kale macnaheedu haddaan hal euro bixiyo imisa USD dollar ah ayaa aan heli doonaa sidaas ayaa ay ka dhigan tahay marka lacaguhu marka la trade geynayo laba ayaa isku raacaan inta badanna tay shaqada ku dhacdaa waa lacagta hore haddii wax la iska iibinayo tan hore la iska iibiyaa haddii wax la iska iibsanayo tan hore la iska iibsadaa haddaynu ku soconno haddii lamaanaha lacageed macnaheedu forex pair haddii lamaanaha lacageed ee euro USD marayso tusaale ahaan oo kale 1.10 macnaheedu waxa weeyaan halkii euro ayaa waxay u dhigantaa 1.10 USD dollars macnaheedu waa maxay lacagta lamaanaha euro USD marka qiimaheedu marayso 1.10 macnaheedu waxa weeyaan 1.10 halkii 1.10 ayaa waxa uu u dhigmaa halkii euro ee halkii euro ayaa wuxuu u dhigmaa 1.10 USD dollar halkii euro ayaa waxay u dhigantaa 1.10 USD dollar kelmadda buy oo meelo badanna luqadda af ingiriisiga marka laga hadlayo loonka aad ku aadi karaysid oo af ingiriisi ahaana soo iibsasho loo yaqaano waxa aad rajaynaysa in lacagta hore macnaheedu lacagta loo yaqaano base currency-ga waa tan dee waa lacagta eurada kor u kacdo lacagta dambana ee loo yaqaano code currency ay hoos u dhacdo marka dad euro USD qof uu buy ku galay macnaheedu waxa weeyaan lacagtan hore uu rajaynaya inay awood yeelato lacagta dambana ay daciifto laakiin qofku markuu sell sameeyo ama short waxa loo yaqaano macnaheedu qofkaasi waxa uu rajaynaya in lacagta hore ay maaragtay ama loo yaqaano base currency-gu ay hoos u dhacdo lacagta dambana ee base currency-ga loo yaqaanana ay kor u kacdo haddii aynu kusii soconno lamaanaha lacageed ama forex pairska ayaynu noocyada lamaanaha lacageed ee la trade gareeyo uguna awooda badan leh ama loo yaqaano most traded pairs waa kuwan waxaa kamid ah lacagta dollar ku jirto oo dhan weeyaan euro USD JPY USD USD JPY USD CHF macnaheedu haddaynu si kale u dhigno waxa weeyaan marka la trade garanayo halkii euro iminka dollar ay u dhigantaa halkii lacagta poundka ingiriisku iminka dollar ay u dhigantaa halkii dollar ee lacagta ingiriisku lacagta Japan iminka ay uga dhigantaa halkii dollar ee Mareykani lacagta USD CHF oo ah lacagta Switzerland intee leeg bay uga dhigantaa minor pairsku waxa weeyaan lacagaha lacagta dhex taalla ay ka yar tahay laakiin iyagana xoog loo trade gareeyo kamid ah lacagta loo yaqaano euro GBP iyo euro JPY iyo lacagta loo yaqaano JPB JPY ama GJ marka lacagta marka loo yaqaano forex pair tan hore ayaa waxay halkii xabo uga dhigantaa iminka weeyaan qaybtan ku xigta waxaa loo yaqaanaa shumacyada ama candlestickska inta ugu badan meelaha shaashada ama kombiyuutarada marka suuqyada maaliyadeed ka arkaysid waxaad arki doontaa waxyaaba noocan u eg haddaba waxani waxaa loo yaqaanaa af ingiriisi ahaan candlesticks waa nooca ugu badan ee inta badan lagu akhriyo suuqyada maaliyadeed oo halka xabo qiso iyo taariikh ka dambeysa jirta oo aynu ka dabagei doono way dhici kartaa in noocyo kale oo shumacyada sida bar chart oo kale lagu muujiyo laakiin inta ugu badan waxaa la isticmaalaa waxa loo yaqaano candlestick kasta ama iminka kan qiso iyo taariikh buu leeyahay kan qiso iyo taariikh buu leeyahay kan qiso iyo taariikh buu leeyahay kan qiso iyo taariikh macnaheedu mid kastoo halkaa yaala qofka traderka wuu la hadlayaa oo markuu fahmayo fariin iyo message ayuu u gudbinayaa micnaheeduna candlesticksku waa hab lagu muujiyo dhaqdhaqaaqa qiimaha suuqa muddo gaar ah macnaheedu haddaan ku weydiiyo candlesticks waxay maanta intan ayaad kaga jawaabi kartaa waxaad odhan kartaa waa hab lagu muujiyo qiimaha ama dhaqdhaqaaqa qiimaha suuqa muddo gaar ah macnaheedu shumacyaduna afartan qaybood ayayna tusaan oo micnaheedu tahay halkuu qiimuhu ka bilaabmay oo open price loo yaqaano iyo halkuu qiimuhu ku dhamaaday oo loo yaqaano close price inta badanna labadaa hore waxayna tusiya waxaa loo yaqaano body oo candlekan ayaa afar qaybood ka kooban yahay waana sheegi doonaa sidoo kale wuxuu inoo sheegaa qiimaha ugu sarreeya ee la gaadhay suuqa marka amba highest price iyo qiimaha ugu hooseeya oo lowest price loo yaqaano kaana waxay inoo tusi weekiskan yar iyaga laftooda taariikh iyo cilmi iyo waxay gudbinayaan fariin iyo message bay gudbinayaan
bodiga halkaa ka bilaabmaya sidaas ina fariin buu gudbinaya waana labada share ee barbilowga ee bardhamaadka inoo sheegaya halka labada kalena ay inoo sheegayaan halka uu ku bilaabmay iyo halka uu ku dhamaaday haddaba waxa isweydiin lahayn qaab dhismeedka uu shumacu u dhisan yahay ama waxa halkan ku yaala muxuu yahay dee inaad fahantid markaad u baahan tahay shumacu laba qaybood buu ka kooban yahay haddaba waxa uu ka kooban yahay qayb loo yaqaano jidhka oo af ingiriisi loo yaqaano body waana halka uu ka bilaabmay kuna dhamaaday oo iminka kandhalka akhtarka inta badan greenka waxaa loo qaataa suuqa markuu kor u jeedo waxaad arkaysaan waxaa kor u jeedo oo dhan waa green waxaa hoos u jeedo oo dhanna waa casaan inta badan kandhalka greenka ah waxa weeyaan wuxuu sheegaya suuq kor u jeeda halka kandhalka casaankana uu sheegayo suuq hoos u jeeda bodigaasi waxa uu inoo sheegay iminka kandhalka greenka ahi halkaasuu ka bilaabmay intaas buu socday oo halkaasuu ku dhamaaday macnaheedu cumrigiisu wuxuu dhamaaday isagoo halkaa maraya marka bodiga sidoo kale muxuu inoo sheegaya suuqani halkaasuu ka bilaabmay ilaa halkaasuu ku dhamaaday laakiin fiiqan iyo fiiqan waxay inoo sheegayaan iyagu halkii ay ugu sarreysay ay gaadheen iyo halkii ugu hooseysay ay gaadheen oo qaybta fiiqa af ingiriisi waxaa loo yaqaano weekis waana halka ugu sarreysay halka ugu hooseysay ee shumaca gaadhay oo website-kii TradingView oo ah website-ka ugu badan waqtiga ugu badan ku qaadana sidan buu eegyahay interface ahaan inta badanna hadhow toole ayaynu casharada aynu ku qaadanayno waqti badan wada qaadan doonaa marka kasoo qaad xabad candlestick oo ah kan ayaynu qisadiisa idinka daba geynayaa iminka candlestick halkaa ku yaala qaabkuu bilaabmay waxay ahayd markii koobaad sidan buu furmay oo halkaasuu gaadhay meel shar u gaadhay markuu meel share gaadhay ayaa waxa dhacday dib baa loo soo celiyey markii dib loo soo celiyey ee soo celitaanka la soo celinayay waxa uu candlekan lahaa dee wuxuu lahaayay wick buu samaystay waa halkii ugu sarreysay ee uu gaadhay soma halkaa ugu sarreysa ee uu gaadhay ayaa waxaa ka dhex samaysmaya wick dheer ayaa ka samaysmaya oo macnaheedu suuqa halkii ugu sarreysay ee uu gaadhay ayaa noqonaysa bartaas deedna maxaa dhacaya hoos baa loo celinaya laakiin marka hoos loo celinaya maxaa dhacaya dee midabkii baa isbedelaya deedna hoos buu socday halkaa marka la maray haddana dib baa loo soo celinaya soo celintaa dib loo soo celiya maxaa ku dhacaya dee candlekii wiig kaloo halkaa ku samaysanaya deedna qaabkan buu ku dhamaanaya oo u ekaanaya still iminka maxaa dhacaya candleka halkan maxaad ka arkaysaa dib baa loo sii wataa weli sidan buu u ekaanaya haddii mar labaad kor loo sii kaco shaa loo sii watana maxaa is dhacaya midabkiibaa green isku bedeli doonaa hadduu halkan ku dhamaadana midabkiiba wuxuu isku bedeli doonaa casaankiisa macnaheedu qaab dhismeed ahaan sidan buu u samaysmay sidoo kale wuxuu sheegayaa halkan midigta wuxuu inaga tusinayaa inta qiimo ahaan uu dhigmo oo iminka markaan shaa eegno 1.17 ayaa uu maraya macnaheedu 1.17 waxa weeyaan lacagtii halkii dollar ee iminka markaan qoraalkeedii aan videoga bilaabayay candleka akhtarka isku bedeli marka hore casaan buu ahaa iminka maxaa dhacay laakiin dib baa loo celiyey marka dib loo celiyo midabka muxuu isku bedelayaa green buu isku bedelayaa maxaa iminka haddana dhacay casaan buu markaa isku bedelay casaanka isku bedelay macnaheedu maxay hoos baa loo soo kaxeeyo salariskiiba haddana awood yeeshay oo waxa halkaa yaalana waa halkii ugu hooseysuu gaadhay waxa halkaa yaalana waa halkii ugu sarreysuu gaadhay haddii kor loo kacana midabkiisa muxuu isku bedelay akhtar oo kolba waxay noqonaysaa ciddii awoodda lahayd baa suuqa qaadanaysa waynu kusii soconaynaa qaab dhismeedka shumaca haddii aynu eegno halka ugu sarreysa uu gaadhay shumaca waxaa loo yaqaanaa waa wick oo waa bartaas macnaheedu shumaca suuqa halka ugu sarreysa uu gaadhay waa halkan halkiisii ugu hooseysay uu gaadhayna waa halkaa halkuu ka bilaabayna waa halkaas oo suuqu intuu halkaa kasoo bilaabmay ayuu halkaas soo gaadhay halkaasina waa halkii uu ku dhamaaday inta halkaa ku taalana waxaa loo yaqaanaa body oo waa intii ku tusinaysa qiimo ahaan suuqu inta uu dhaqaaqay shumaca bayga macnaheedu waxa weeyaan shumacu halkaasuu ka bilaabmay intaanu halkaa ka bilaabmay ayuu halkaa ku dhamaaday deedna halkanna waa halkii ugu hooseysuu gaadhay oo markii hore intuu shaa u gaadhay ayaa dib loo soo celiyey deedna halkaas waa halkii ugu sarreysuu gaadhay halkanna waa halkuu ka bilaabmay halkaas waa halkii ugu sarreysuu gaadhay halkanna waa halkii ugu hooseysuu gaadhay intaa buuran waxaa loo yaqaanaa body ama jidhka waana inta ku tusinaysa qiimo ahaan suuqu inta uu dhaqaaqay oo intaa in leeg markuu dhaqaaqo waa intii suuqu isbedelay weeyaan TradingView haddaynu sidoo kale sheegno TradingView waa website iyo app lagu eego chartiska suuqa waxaana loo isticmaalaa in si loo arko qiimaha kor u kaca iyo hoos u dhaca
si loo sameeyo falanqayn iyo sidoo kale si loo ogaado goorta la iibsanayo ama la iska iibinayo waana halka ugu badan in waqtiga ugu badan ku qaadan doono TradingView inta badanna cashar gooniya ayayna ka samayn doonaa waana TradingView website-ka shaqada ugu badan ayaan ku qabanayno noocan baan u eegyahay marka aynu furno insha allahu tacaala waa inoo casharka dambe oo aynu ku falanqayn doono